وما سنتين آدي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن إسماعيل عمر قال مدحونها جمهورية جيبوتي مروة كوبات مدام خضرة محمود حايد مدحدا كلا شرفت له دمان ماشى تمدي إيوه شعب كالصوماليات شعب كرير جيبوتي دمان مركله وحن إذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدح وينه وحا شرف وين يا كرام النوع أمانته إن المركله كسر نقنه مقالة عرتا حرونتي أساسك للسدة دقان قلنتا جمهورية سدحات صوماليا مرت شرفته تاريخ ذا سكسو قيب قشي أيقنا آدي أيو ماسيين وحا شرف وين إيو فرحة قرن أنيقا إياه إن آن مانت إذن كلا هدلوه مناسبة دلقو حصيو سند قوردي شان إيا لبعتنات كسو وركتشر وينيه عرته إن بدينتي صوماليا وحا حصوص قارة إيه تهي إن آن كمد أهاي إنتي جوكتي شركاس وكا قيب قشي وحكا أوغيدي هالكن waxaa kale oo maanta aan rabaa inaan aad iyo aad u xuso dadaalkii madaxweyne Ismaaciil iyo shacabka reer Djibouti ka sokow halyeeyadii Soomaaliyeed ee ayagana u xaytay in ay shirkaasi iyo Soomaali isu soo noqoshadeedaba ay dhaqan galaan laga soo bilaabo la tashigii bulshada rayidka ee magaalada Djibouti iyo magaalooyin kale oo dalka ka tirsanba shirarka ku tagayay gudoonkii shirkaas oo walaashay Marwo caasho ay nagala joogto maanta الله ونحرسته حسن أبشر فارح يوم مدنة هاي ما قيسي رالع محمد عبد الله ديرو إساق سمر إيمان الله نجود السيا الله ونحرسته السجن وحكلوا عن آد maanta arkiisiisa ugu faraxay mudane cali cabdi faarax oo asaguna kamid aha dadkii maanta aad iyo aad ugu fircoona oo howlaha Soomaaliya u taagna mudane yaali marwooyin arta dabcan taariikhda Soomaalida ma aha taariikhda Soomaalida jamhuuriyadda Soomaaliya ku nool bas laakiin taariikhda dadka Soomaalida ku abtirsada meel kasta ay joogan ayaa waxay u ahayd u tahay taariikh aad iyo aad u weyn oo sharaf iyo karaamo badan leh maanta oo rubac qarni ay ka soo wareegtayna waxaan rabaa shacabka reer Djibouti inaan mar kale uga mahad celiyo arintaas ma aha oo kaliya maalinta inay halkaa lagu marti geliyeen dawladna nala dhiseen kadibna ay yiraahdeen socda ee waana raaceen Soomaaliya nala tageen sida hadda madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynihii koowaad ee jamhuuriyadda saddexaad oo halka ka sheegay nagama ayan harin maalinta ilaa maanta la joogo ayay nala taagan yihiin noo hureen waxa qofka bini aadamka hadiyada ugu qaalisan oo bixiyaa waa naftiisa ay noo hureen naftooda magaca hiil walaalne oo ku dhaqan gal halka mudana madaxweyne kadib in ka badan 14 shir oo dib u heshiisiin ah oo dalka dibadiisa lagu qabtay shirarkaas oo qaar badan markaan tagnay aan intaan ku soo qaybsanay ayaga laftooda aan ka soo noqonaynay annagoo tiradii aan ku tagnay ka badan oo qaybsan laakiin nasiib on jamhuuriyad dawladna aan inooga soo bixin nasiib wanaag dadaalka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee 2000 Djibouti meesha kama ay bilaaban waxaan rabaa inaan xuso madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon shirki koobaad ee Djibouti shirki labaad ee Djibouti oo markii ay dhibaatadu dhacdayba si degdeg ah loogu xujiyay oo halkan la isugu yimiday dadaaladaasi markii dambe ay saadana amuuruhu si adkaadeen madaxweyne Ismaaciil ayaa haddana markale halkii ka sii waday tooshkii oo qaaday ilaa lagu guuleystay in shirkii carta la isugu yimaado Soomaalidu isugu timaado oo halka uu ka dhaqan galo ay ku dhaqan gasho jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya maalintii
baarlamaankii halka lagu doortay ay doorteen gudoomiyaha baarlamaanka Cabdalla Deero Isaaq Allahu naxariiste ee uu ka soo baxay teendhada isagoo oo baabuur marshiiso calanka Soomaaliya uu saaran yahay wata magaaladani waa wada daba kacday baabuurkaasi daba kacday sida farxadda iyo wanaaga ay u lahayd maalintaas dadka Soomaaliyeedna ay u dareemayeen barnaamijka Maxamed Daahir halkan uu ka sheegay Soomaaliya toos maqribka salaada hadii la oo aan ku nooleen waxaan xasuustaa cid waliba waxay aadaysay meeshii ay ka heli karto kii guriga uu television u yaalo iyo kii meel lagu kireeyo lacag ka bixiyo oo ku daawada intii ka dhaxlaba waa la wada istaagay waa loo wada dhaqaaqay wadooyinka magaaladana firaaqay noqonayeen waa intii Soomaaliya joogtay ee aan fursad u helin ee halka ay ku yimaadaan mudana madaxweyne nasiib wanaag si fiican ayaan u xasuustaa maadaama aan ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay shirka carta sida aad u muujisay adkaysi iyo dulqaad marka xaaladdu shirka adkaato adiga oo aad ugu dadaalayay in aad isu soo dhaweyso dhinacyada marka talo murgacato mar badan ayaadna soo dhex fariisatay marna aqalkaaga ayaad noogu yeeri jirtay in yar markii ay amuuruhu adkaadaan haddaatay ayaan ku soo arkay khudbad aad shirka halkan ka jeedisay oo dadkii shirka fadhiyay in badan oo kamida ka oohisiisay oo ahayd hal ii hiiliyo inaadna tiraa maalinta hal ii hiiliyo ma mudnayn laakiin duruuftii markaas jirtay iyo sidii ay markaa u muuqatay ayaa keentay kelmadda inaad tiraado oo dad badan oo Soomaaliyeed oo wax garad ahaa oo halkan fadhiyay maalinta runtii ka oohisiisay maanta 25 sano kadib Soomaaliya waa jamhuuriyad jirta caalamku aqbalay maalintaasna lama aqbalsaneen dunidu maanta wayna aqbashay mas'uuliyada waaweyn ayaana lagu aaminay codkanaga ayaa gaaray meel aanu muddooyin dhan aanu gaarin iyo meel dawlada aanu wiligood burburin xataa wili codkoodu aanu gaarin ayaa codka maanta jamhuuriyadda Soomaaliya ay gaartay maalintii halkan laga tagay carta ilaa maanta 25 sano jamhuuriyadda Soomaaliya waxay soo sameeynaysay horumar tartiib ah qof waa ku doodi karaa horumar inta ka dheer ayaa la sameyn karay laakiin marna dib u noqoshana ma jirin sida haddaba halkan looga dhawaajiyay oo mar walba Soomaaliya gudaheeda siyaasadda isjiid isrixrix way leedahay laakiin marna nagama ayan gaarin meel ama naloo baqo ama ay muxuu ahay naga xumaato dadka Soomaaliyeed sida madaxweyne Sheekh Shariif halkan uga sheegay markii ay xaaje ka dhibtooto way shiraan waa laga yaabaa shirkuna inuu ku daba dheeraado laakiin marka ugu dambayso heshiisa ka soo baxa waa lagu heshiiyaa horena waa loo sii socdaa mudana madaxweyne mudanayaal dib u dhiska dawladnimada dal burburay ma aha wax aad iyo aad u sahlan oo cawo iyo maalin lagu dhameystiro culayskana waa ka sii badan yahay marka dawladnimada ay maqnaato in ka badan 10 sano oo dalka Soomaaliya 10 sano oo dagaalo sokeey ay socdeen musawiyaal kala duwan iyo siyaabo kala duwan ay u socdeen soo kabashadu waa hawl aad iyo aad u dhib badan colaadda in la abaabulaa waa sahlan tahay nabadda in la abaabulaane way culus tahay raadka colaaddu ay reebtana inuu baahi waqti dheer ayay qaadataa ma yaraysanayno in ay waqti dheer oo aad iyo aad muhiim u ah ay nagu qaadatay in aan in badan dib u soo kabanno laakiin maanta Soomaaliya jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya waxay maraysaa meel ay halgan adag ku jirto adduunyada maanta labada urur argagixiso ee ugu dhibka badan ee ugu halista badan ayay Soomaaliya dagaal kula jirtaa waa Daacish oo la garanayo xumaanteeda iyo naxariis daradeeda iyo argagixiso aabihii dhalay oo ah maxaan ku yiraahdaa al-Qaacida urur ku abtirsada ayaan dagaal kula jirnaa dal dhiski iyo dimuqraadiyiintii iyo ciidankii dhisidiisii iyo dhaqaalihii dhisidiisii iyo magacii Soomaaliya soo celintiisana dhinac kale ayaan ayadana ka wadnaa kamaanan hakanin
waxaan rabaa shacabka mudane madaxweyne adiga iyo shacabka reer Jabuutiba inaan u sheego ugu bishaareeyo in maanta Soomaaliya aan loo cabsanin oo aanay suurtagal ahaynna in ay dib u murgacato iyo argagixisadu inay ka adkaataba intaba suurtagal maaha argagixisada waan ka sii adkaanaynaa maalinba maalinta ka dambaysa mahadi ha ka gaarto dhammaan caalamka nagu garab istaagay waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa walaalaha reer Jabuuti ee hiil walaal ee maalintaas ilaa maanta dhiigooda wali ku bixinaya Soomaaliya sida ay u noqon lahayd dalka natiijada shirki carta waxa ay noqotay in la dhiso dawlad Soomaaliyeed oo leh sharciyad aqoonsi caalami ah waxa la dhisay baarlamaan waxa la dhisay la qaabeeyay dastuurku meel gaar ah oo dalku uu yeesho oo ahayday charterkii halkan lagu ansixiyay charterkii la sii hormariyay sida madaxweyne Shariif uu sheegay waxa lagu soo gunaanaday muddadii ku meel gaarka ahayday inay dhamaato dastuur cusubna lagu dhiso magaalada Muqdisho intii ka dambeysayna xukunka la isugu gudbiyo si nabad ah oo aanan qorayna lagu kala qaadanin qorayna aanan muxuu ahay la isugu diidin intaba mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya magaca dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo magaca shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan walaaltinimada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Djibouti idin cadeynaya inaanay ahayn mid siyaasad kaliya ku salaysan laakiin sida abwaaniintii iyo ay u sheegeenba ay tahay mid inta ka fog ee ku salaysan walaaltinimo dhalasho iyo cir ku salaysan dawladda jamhuuriyadda Djibouti oo uu hogaaminayo walaalkeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ma aysan ku ekaan kaliya hindisihii martigelintii shirki taariikhiga ah ee carta balse waxay tan iyo maalintaas daba socotaa dawlad Soomaaliya sidii u sii xoogaysan lahayd ma aha sidii loo dhisay sidii u sii xoogaysan lahayd meesha ay joogto ay uga sii dhaqaaqi lahayd mar walba dadka Soomaalida ah qalbigooda way ku taagan tahay waxaan rabaa halkan inaan ka xuso kelmad aad iyo aad u wanaagsaneed oo taariikhi ah oo aniga waliba xusuus igu reebtay maalintii aan dhageystay kelmadda ilaa maanta jamhuuriyadda Djibouti markii ay xor noqotay ayaa halkan la isugu yimiday iyadoo loo dabaaldegayo xorriyaddii waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliya ee berigaas Xuseen Kulmi Afrax ra'iisul wasaarihii Djibouti ugu horeeyay Axmed Diini ayaa khudbad ka jeediyay khudbadiisii waxaa ka mid ahayd wiilku si kasta oo baari u noqdo aabihii uma abaalgudi karo Soomaaliya uma abaalgudi karin waxay noo gashay waxaan rabaa maanta taasi dhinaca kale inay u rogantay inaan idin sheego dadka reer Djibouti wanaaga iyo waxtarka waliba aan garanayo sida ay culays iyo miisaan idinku ahayd ee sida ay nafurnimo u ahayd aad samayseen si kasto aan idin ammaano ma gudi karno oraahdii Soomaaliyeed ee ahayd ma intaasaan ku gudaa mise shan geedan ka sheega inaan meel walbo aan istaagno taariikhdeena marka aan ka hadlayno inaan Djibouti soo xusno waa abaalgudka Soomaaliyeed ee maanta idin hayaan waxa inta dheer dadka Soomaaliyeedna meel kasto ay joogaan aan rabaa inaan u sheego dadka reer Djibouti iyo dawladda Djibouti xoolo nagama rabaan hanti nagama rabaan dhul nagama rabaan marka dad inta hadaan laga rabin maxaan ku abaalgudi karnaa sheegid leh miya maya sheegid waxbaan ku dareynaa sheegid waxaan ku dareynaa waxay tahay wixii ay sacrifice-ka ama nafurnimada inta la eg u sameeyeen ee qaran Soomaaliyeed iyo dawlad Soomaaliyeed oo taagan oo mowqifkii iyo meeshii ay ku lahayd caalamka taagan inaan helno ayay ahayd muraadkooda inaan fulino muraadkaas isqaadano isaqbalno isu tanazulno aan gaarno meeshaas muxuu ahay ay nala jeclaadeen walaaleen taas ayaa abaalgudka ugu weyn u ah dadka Soomaaliyeed magacooda ku hadlay mudane madaxweyne iyo walaalaha hiil walaal ee reer Djibouti intaba
waxaan ballan qaadaynaa qadiyaddaas inaan ka dhabayno oo aan Soomaaliya haddaba sida ay u soo socotay xawligay ku soo socotay ee ka sii dheerayso oo ay meeshii ay shalay ka soo laabatay iyo meel ka sarreysa ay sii gaarto mudana madaxweyne marti sharafta iyo ka soo qaybgalaasha shirkan qiimaha badan waxaan maanta ognahay fahamsannahay dadka Soomaaliyeed haddaan nahay nabadda micnaha ay ku fadhido waxaan ogsoonahay wadajirka micnaha uu leeyahay dad badan ayaa eeda oo wax ka sheega ama dura qadiyadda 4.5 laakiin 4.5 tool aaliyad maalin kale aan waxba aanan haysanin aan helnay ayay ahayd waa ku soo caana maalnay waa ku soo gudubnay maalintii halkaa 4.5 ka looga dhawaaqayay ee lagu dhaqmayay wax loogu qaybsanayay 2 sano inaan ku gudubnay ahayd 2 sano kadibna aan ka gudubno nasiib darro 2 sano inaan ka gudubno ma suurto gelinin waa inoo taallaa weli laakiin hadda ayaan fahamsannahay una xeydxeydinayna si nabad ah inaan uga gudubno waxa ugu weynna waxay tahay siyaasadda Soomaaliya in la habeeyo la tandiimiyo oo siyaasad institutions iyo tandiim ku salaysan laga dhigo oo aan ka wadno ka dhaqaajino ka gudbino siyaasadda qofka ku salaysan madaxweyne xasan sheekh aan rabnaa ma rabno hebelaan rabnaa caliyaa ka fiicnaay waxba nooma tarayso siyaasad qof ah laana qofku joogta ma aha saakana qof ayaan ahay galabta gelinka dambena qof kale aan noqon karaa shala qof ayaan ahaa maanta qof kale aan noqon karaa duruufaha ayaa ibadbedeli kara laakiin institutionka siyaasadeed ee la yaqaanaahi ee mabaadidiisa iyo siyaasadiisa meel dhigtay ee dadka Soomaaliyeed u sheegay ka iibiyay ma sahlana in la bedelo haddii la bedelayna iyadoo la og yahay la bedelayaaye inta jiif aan ka soo kaco iskama dhihi karo saak sidaasna waana astaanta Djibouti ay meesha maanta ay joogto ay ku soo gaartay siyaasaddu deganaan inay leedahay joogtayn inay leedahay iyo institutions inay leedahay maanta Soomaaliya waxay u taagan tahay wadadaas caalamku uu qaaday ee uu ku habeysmay inay gasho oo ay ka gudubto siyaasadii qofaysneed iyo siyaasadii qabiileysneed intaba qabaa'ilka Soomaalidu ajanda siyaasadeed ma laha intooda badan laakiin raggeena siyaasiyiinta marmarka qaarkood yaa isticmaala waxaan rabnaa ayaguna inaan ku dhib yarayno oo aan ku tirno institution la yaqaano oo la saadaali karo biri waxa ka imaanaya iyo sidoo u dhaqmayo inaan dalka soo gaarsiino ayaan rabnaa dastuurkii ku meel gaarnimada aan uga baxnay ballantii ku qornayd ee ahayd dadka Soomaalida qof iyo cod in la gaarsiiyo yaan rabnaa dastuurka ku meel gaarka ahayd ee transitionka aan uga baxnay muxuu ahay gabagabadii transitionka madaxweyne muxuu ahay Shariif Sheekh Axmed uu ka shaqeeyay iyo hoggaankiisa iyo dawladdiisa ka shaqeeyeen sidoo asagu qorayo inuu ku meel gaar yahay oo laga baxo ayay ahayd inaan ka baxnaan rabnaa waxa oo dadaala oo dhan oo aan rabno inaan gaarno ma rabno inaan ku gaarno khilaaf iyo colaad iyo isdagaal iyo iscolaadin waxaan rabnaa inaan ku gaarno wada hadal iyo maxaan ka isqaadasho in allaale intii suurtagal haddii alla yiraahdo waxaan rabaa Soomaaliyada cusub ee carta ka bilaabatay ee socota maanta meesha ay joogto inaan hore uga sii socono dalka aan ka xoreyno cadawga ragaadiyay muddada 20 sano ku sii dhow inaan dalka ka xoreyno ayaa waajibka koobaad na saaran u yahay dalka inaan ku soo celino mowqifkiisii iyo dimuqraadiyaddii iyo institutionska siyaasadeed inaan dhisno ayaa waajib nagu ah dalku waa hodan waa qani ee khayraadkiisa inay ummadda Soomaaliyeed khayraadkaas dushooda aanay baahi ugu dhimanin ee aan soo saarano aan ku noolaano ayaa muhiimad kale ayadana noo ah dadaaladaasoo dhammi waana soo socdeen muddo hore haddana way sii socdaan waana sii socon doonaan waa ilaa aan ka gaarino waa dadaalo aan ku xirnayn madaxweyne yimiday iyo madaxweyne tagay midna ee mar walba astaanta dawladnimada iyo ummadda Soomaaliyeed ay u taagan yihiin midnimada
ummadda Soomaaliyeed waa la sameynaa guri haddii la dhisayo dadka shaqaalaha ee guriga ka shaqeynaya ee dhismaha ku jira inay dhiiqada iyo carrada iyo boorka iyo shamiintadu ay soo gaarto waxay ka mid tahay hawsha dhismaha dawladnimada dhismaysa weli inta aan ku jirnana in la isriixriixo oo la is-eedeeyahay waxay daliil u tahay inay wax dhismayaan waxna socdaan cabsida shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay cabsida hal la yareeyo cabsiyo ma jirto meesha ilaahay hadda waa ku fuweynay hadda wixii ka dambeeyay ma ku feynaa dii la yiraahdo gabagabadii waxaan rabaa mar kale inaan si qalbi ah mahadnaq qaran ah aan ugu mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka reer Jabuuti oo aan leeyahay hiil walaal shalana waad noo hiiliseen welina hiilkiina waa u baahannahay abaalgudkiinuna waa Soomaaliya qurxoon oo timaado mustaqbalka dhow haddii la yiraahdo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allah yajzak gabagabadii ayaan maraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ee martida loo yahay mudane Ismaaciil Cumar Geelle السلام عليكم سمعت انا طبعا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مدحوينه مدن مروين يا مدنيال مسؤولينتي هراء Soomaaliya ra'iisul wasaare iyo ra'iis baarlamaan iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah hadalka waa liiga dhameeyay oo dadkii igu horreeyay baa wada qaatay bal waan isku dayay inaan in yar koobo shucuurteennana aan bal soo ururino oo aan tilmaano maalintani inay maalin weyn noo tahay maalin xasuuseed ay noo tahay maalin jacaylka iyo kalgacalka la isku qabana aan ku cabirayno inay tahay ayaan doonayaa inaan ku soo koobo maxaa yeelay in badan baad fadhideen meesha waxaan loo baahan yahay in dadku aanan lagu dhibin hadalka haddii maskaxdaba kolkay ay meel joogto waxay odhanaysaa ma qaadi kara haddii toon kolka haddii meel laga baxay oo bilaa natiijo la baxay in la noqdana ma fiicna sidaa daraaddeed shalay haddaan dib u milicsano in yar waxba ahayn hortay baa la wada yidhi oo gogoshan aan fadhino iyo arooskan gingiimani bannaan weyn buu ahaa taladii waagaa loo fadhiistayna in aan xuskeeda haynaana sidaa ayay u ekayd sawirkaa bay lahayd reer Jabuuti markii ay yidhaahdeen adigu qabo hawsha waddanka iyaan isweydiinay dhibaatooyin kasta oo aan qabno walaalkii naga weynaa ee abaalka nagu lahaa
maalintii uu gaalku neeriyanayay wixii aan u baahnayn oo dhan ee halganku u baahnaa oo dhan nala garab joogay arrimaha yani qaramada midoobay marka la joogana difaacayay inaanan gobonnimo meeshani ayna heli karin dadkii iyo dawladdii baan nidhi waa sidee waa kan gaalkii aan iska saarnay maxaan qabanaynaa bay su-aashu timiday waxaan qabanaynayba ma jiro haddii wixii aan dad ku tiirsanayn een lahayn tallaabooyinka u horreeya haynila qaadaan oo aan lahayna waa kanoo 10 sannadood bay horta 1991kiiba waan bilownay 1991kii bilowgii aan bilownay iyo wixii ka dambeeyayba 10 sannadood ayaa loo diiday fadhiba ummadda Soomaaliyeed maalin walba meel ha loo guuro maalin walba in ha la dilo maalin walba yani anagoo dadka sidaa hayna waxaan deesniri maxaad laga sheekeynayaa horta waa inaan u dadaalno oon ka kicina meeshan lagu riday godkan lagu riday Soomaaliya in laga kiciyo oo la abaaro oo laga celiyo oo adduunka loo qayliyo itaalaan haynay ma jiree laakiin ilaahay mahadii deylada 10 jirsatay ee hore iyo dabo iyo maxal meel la qabto toona lahayn dagaalkii ahliga ahaa ee burburkii dawladnimada Soomaaliya wuxuu ahaa mid ay dunidu ka anfariirtay oo dac walba laga dareemay dadaaladii aan isku day nabadeed ee 10 sannadood ka hor ka bilaabmay way dumeen laguma doojin dawladnimo laguma yegleelin waxaa noo soo baxday marka inaan hawsha galno ma dunida damiir beeshay ma Soomaalida wanaagii ka dhamaaday ma deriska isku dayay fara badan oo ilaa 16 jeer lagu sheegay dabadeed ka daalay oo dib uga joogsaday wada weydeen inaan had iyo habeen golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay bishii September sanadkii 2000 si aan u toosino damiirka beesha caalamka una tusno halista dunida uga iman karta fawdad iyo dagaalka ahliga ee Soomaaliya ka socda wala nala yaabay xasuus baan u leenahay sidaasi waxaan kala kulanay aqbal iyo balanqaadka in la taageero hawsha dib u dhiska ee Soomaaliya waxa halka yani aan xuseynaha xogayihii guud ee qaramada midoobay Kofi Annan inuu nagu lahaa abaal weyn nagu lahaa ambassadorkeena Allah yarxamo Rooble Col hayana waxa uu dadaal weyn ayuu ku jiray oo arrinka halka kolkuu gaarsiiyay albaabadan ayaa la noo furay dadka aan shirki ugu yeedhnay Soomaalidu si fiican bay u soo gashay si fiican bay noola shaqaysay dhaxdeena kolkaan isku kiindeynay isqabqabsateenna waan idin dhaxgalaynay kolka aan karaynana waan hagaajinaynay marka kalena waagaan u bariinaynay kolka dadkii dhaqaaq ay yiraahdaan ay waaban tagaynaba meeshan waa la nagu gumaaday anaga iyo waa la naga eexday iyo waa la nakanay waa ka dareeraynaaba shandadaha qaataan ka daba tagado soo qaba hadana soo cili waxba ma karno waxba ma doono may lama soconayo halkan waan askar baan u sheegno ma baxaysiinay
fadhiya oo gaadha natiijo gaadha tala keena dhulkiinnii uu inii baahan yahay kolkaa dee waxaan nidhi maxay ahayday gogol xaadh tilmaaman turxaan bixin godob sheegaso iyo ka garaabis cabashooyin iyo calool xaadhasho cafis iyo caafimaad guud waxaan uga ba'nay gacan shisheeye iyo sixur wax u sheega intaba dhudhub kasta ay gasho waan dhirinayn intaa dabadeed ergaa la xulay weerar xeerar baa la sameeyey kolkaasaa dastuur kumeel gaadha sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh iyo dowlad dhammaystiran lagu dhawaaqay waa loo dabaaldegay dunidana waa la maqashiiyey dib baa loo noqonayaa waabaa bariyey bilicsan arooryo baxsan baa layidhi madaxweynihii maalintaa la doortay mudane cabdiqaasim salaad xasan oo mushkilado caafimaad ay la kulmeen oo da'diina way jirtaaye aad baan ugu faraxnay fariintiisii waxa uu na tusay in ma garanaysaa inkastoo isagu kari waayey inuu yimaado haddana codkiisii in la maqlo talo wuxuu hayay iyo dardaaran wixii uu hayay intaba inuu noo soo gudbiyey aad baan uga mahadnaqaynaa shirweynaha nabadda ee Carta waxay nagu waajibay inaan isweydiino ma laga guun gaadhay himilooyinkii aan ka lahayn haa waan odhan karnaa kolkaan ka eegno haykalka guud ee dowladnimo oo dhammaystiran xidhiidhka caalamiga ah shalay waxay joogtay kursigeygii Soomaaliya oo golaha loo dhan yahay maanta se meel ka sii sareysa ayay joogtaa oo waxay ka talisaa amniga caalamka iyada oo Afrika ku metelaysa dowladaha tirada kooban ee ka arinsada ammaanka qaramada midoobay wax si fudud ku yimid maaha waanad ogtihiin inta hawl loo soo maray intaas oo maaha ee Soomaaliya waxay noqotay xubin firfircoon oo xiriirka adduunka saameyn weyn ku leh dunidana kalsoonidii xanaanaysa maalinba maalinta ka dambaysa ugu dambeyn iyo gunaanad Soomaaliyeed ogaada idinka dhalintaay ogaada idinka mustaqbalka leh idinka ayuu xil idinka saaran yahay sidaad nabad iyo barwaaqo ugu noolaan lahaydeen qaladkii aabayaashiin galeen iyo godobihii qabiilka aad ka dhaxalsheen kadib kadbaday inay caqabad idinkaga noqon waayaha ifaya uu sheegay madaxweyne xasan fikira oo aad u fikira timaadada aad ka mas'uul tihiin wanaag waxaan lahayn annagu waan ku darsanaynaa daraasad hadday tahay wixii qalad naga dhacay sana waanu marmarsiyo u noqon baaqashadiina Soomaalida qurbaha ee dunida ku baahday idinkana waxaan idin leenahay waxaan idinku bogaadinaynaa sida dunida ula qaybsanaysaan
iyo sidaad uga qayb qaadanaysaan dhismaha dalkiina hooyo waxaan leenahay wixii dibad u baxay waddankooga hadday xasuustaan haddii ay maalgeliyaan haddii ay carruurtooda ku baraan inay qurbo tahay meeshan la joogo in loo baahan yahay inay walaaloobaan ayaguna ay waddankooga noloshiisa horumarkiisa mustaqbalkiisa in loo hooyan doono berri toole oo xabaashii halkii ay kugu sugayso in yani in dad aanan xididba lahayn inaan noqono ma fiicno haddii shalay toole aad lahaydeen aan nilahaa anigu ii heliya maanta waxaan leeyahay isku heliya wada tashada hiil nooc walba leh inaad yeelataan oo aad ka kaaftoontaan talo dad kale ina siiyaan dadkiina inaad ku tala gashaan wanaagga un in laga shaqeeyo meeshan aan iskugu nimidnay maanta waxaan doonaynaa inaad kala tagtaan fariin jabuuti ay nii soo dhiibtay oo wanaag horumar wada tashi iskaashi intaba leh ayaan doonaynaa soomaaliya mustaqbal wanaagsan bay leedahay dadkeeda un baana dhisi kara oo sii dhisi kara oo hore u qaadi kara shisheeye waxba ma hayo intuu wanaag kula doonaya ilaa buu doonayaa inaad meelaha aad sadaqaduun aada la sugto oo soomaalidii oo dhanna loo dareeriyo oo la yidhaahdo maxaad mashruuc haysaa hay-adii maxay ahayd maalgelinaysa waxaani ma annagaa u baahan mise inagaa u baahan haddaad tidhaahdana kani waxbuu arkayaaye waa la iska kaa garamare kuwii kale unbaa lagu tusi oo loodhanaya waryaadeen waa ninkani wuu dhargay oo ma garanaysaa wuxuu leeyahay hay-adaha la shaqeeyo oo wuxuu lacag badan buu helaayo bay ku odhanayaan halkaabaa loo wada jeesanayaa nuxurkiiba waa laga tagaya dee horumarku xaguu ka imanaya dadkii dhulka lahaayba haddayna u naxayn oo mid walba hadduu dilaal ka qaato inuu iska socdo hadhowna lagu caayo oo lagu yidhaahdo oo malcuun baad tahay waxan baad samaysay waxan baad xaday waxan baad kanaysay muhiimaddu waxa weeyaan dalka ma jeceshahay mise ma jeceli bas waxa kale waa sheeko weyn cid wax kuu qabanaysaayana ma jiro haddii aanad adigu dalkaaga iyo diintaada aan u helinin hiilka dambe oo cid kale kaaga imanaya lama sheegayo soomaaliya ha noolaato jabuuti ha noolaato walaalnimadeennu ha noolaato wada qabsigeennu ha noolaado horumarkeennu ha noolaado والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته